gaashaamo runtii siduu Suldaan Maxamed Xasan sheegay dhibta inaga lahay meeshan waxa weeye xukuumad baa ka talisa dawlad deegaanka Soomaalida arrinkii gacanta iyada ku haysta way fool xunta wax ficila haddii laga geysto ma laga sameeyo dawladdu iyada sida u baaranayso ay taqaano iyada dariiq ay u marayso iyo wixii dhibta geysay iyo wixii loo geystay iyada soo saari doonta marka waxa leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland arrinkaasi ka warsigo xukuumadda meeshaasi gacanta ku haysa inta waxaan maqlay hadalkii Xaaji Cabdi si qaldan bay u fahmeen laakiin Xaaji Cabdi waa nin nabadeed cimrigiiba kama talin colaad nabad mooyee hadalkiisuna YouTube ku duuban yahay cidii hadalka qalad ka fahamtay waxaan jecelahay horta bal YouTube inay dhageysato ninkaasi gurmad loo wada leeyahay oo nabadeed ayuu isagu tilmaamay laakiin gurmad colaadeed marnaba hadalkiisa kama dhadhamaso kamana muuqato Soomaaliduna Xaaji Cabdi way taqaanaa oo oday nabadeed cidii khalad ka fahamtay sidaa ha ula socoto waxaa kaloo jirta dadka reer Somaliland inay nabadda ka shaqeeyaan oo dawlad deegaanka Soomaalida nabadda kala shaqeeyaan oo mid loo baahan yahay meeshan wax cadaawad u taalla ma jirto labada shacbi waa dad walaalaha qadiyaduna waxay ka dhacday niman ka shaqeeya cashuuraadka dalka oo dawlad deegaanka Soomaalida booliisa ayaa xabad laga horreeyay sida Suldaanku sheegay iyaguna markay dhowr kaga dhacday rasaasi ku fureen dad shacbi ah hubaysanina uu ka horyimi baa leeyahay in warka la hubiyo marka hore siday wax u dhaceen ayaa ka fiican in la iska faaleeyo la iska sheego wax aan jirin baryahan u dambeeyay labada dawladood heshiis bay haayeen waxbay kala kororsadeen isdhexmar baa la sameeyey wax wada qabsi iyo nabadda inay ka wada shaqeeyaan ay ku tashadeen annaguna taa waan ku raacsanahay ciddii nabadgelyada xumaynaysa inta laba laga qaado ayaanu ku raacsanahay xaggan iyo xaggaada السلام عليكم انت سامع سلطان anigu hal su'aal aan kala darsado dadweynaha la laayay waxay ahaayeen waxa la yiraahdo ku warramo Israa'iil ayaa dadka xasuuqda Arabta kelmadda xasuuqood iska leedahay macnaheedu horta isbaa inta su'aasha weydiin xasuuq waa maxay aniga idee waa taa Israa'iil ka socota ayaa la yiraahdaa xasuuq laakiin tani waa si kam ay ku timi arrintu dawladna way leedahay dawlad baa ka talisan meesha iyada wixii wax sameeyay ka gacanta wax ka qabanaysa laakiin mid inaga inoo taala ma aha dadka meesha ku dhintay aan waxaan leeyahay xasuuq kumay dhiman قدر الله ايه كنت السبان هذا سؤال كوديانو ان سوداك كلا نقول السودان محمد حسن ولدي شعب كده بس كل عاي كنت هنا سيده لو جيت قوه ضد الاشعاع كسو جيت Soomaaliland يعني عندنا دغه توبيا dadka dareenkooda Soomaaliland la dhashay dadka dareenkooda uu muujinaya kacsanaan oo kale arrintaas inay taa ka sii xumaato oo dadka loo gurmado arrintii taa ka xumaato ma ka hawlgalaysan idinka ma baxaysan dadkii salaadiin هذا محل بيحول قصب عين وطي dadka inaynu joojino
ورأيي خلدان لقشدي إنهم كبابين الكورتيوكسن عميش جوا دولة دت كده يضعوا تلسا سوماليلاند عقبة يو دولة ديجانك سوماليدا maamul bay leeyihiin wasiirey leeyihiin ciidan bay leeyihiin reer somaliland oo ciidamada ku dhex jira ayaa jira dad u dhashay somaliland oo laakiin deegaanka ka mid ah oo madaxa jira oo saraakiil oo ciidamada ku jira marka waxay ila tahay waxaynu wax ka qaban karayno tan ay loogu dhow dharkayngeeyeen fidladeedna waxaa wada cali khaliif iyo nin garaadoo aanan sheegin la sheegay askaba sheegay wax la yidhi garaa jaamaca baa la yidhi ayaa mushkiladaan sababay marka maxay ku sameeyeen dadka inay isku dilaan dad walaalaa oo maataa inay isku dilaan maxaa ku kalifay maadaama iyaga laftooda ay beeshood yihiin xasuusta ay kalifeen hada waxa siyaasadda halkaa gaarsiiyey waa kursidooda baalka kursiga wuxuu leeyahay xasaasiyad aanaynu dareemi karayn dad baa sheegaysa hooyada baad ku gowracaysa hadday ka hortimaado kursiga waxaan leeyahay dadkaasi baan nabad ha qaataan xabadda ha joojiyaan arrintoodana dee goli guursida iyo goli baarlamanku way loo joogaan iyo odayaashii nabadoonadii iyo culimaadudiinkii gurmata lagu tago meesha nabadaynta laga dhaliyo